kulanti wanaagsan daawadayaal waa tartankii halabuurka ganacsiga ee jaamacadaha Muqdisho shantii sano ee la soo dhaafay wuxuu si xiriir uga dhacay Soomaaliland waana markii ugu horeysay uu ka dhacayo magaalada Muqdisho sanadkan oo uu Muqdisho ka dhacayo waxa ku tartamaya 10 jaamacadood oo caasimadda ku yaala 12 mashruuc oo laga soo dhexulay dhowr iyo 30 mashruuc ayaa lagu tartansiinayaa fikradahooda ganacsi bangiga caalamiga ah ee Premier Bank ayaana maalgelinaya oo ku bixinaya lacag dhan $21,000 waxaa la abaalmarinayaa saddexda qof ee ugu horeysay ee ku soo kala baxa kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad go'aanka guddiga kadib. barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga oo maalgelinayo Premier Bank ayaa daawanaysan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay lagu qabanayaa waxaa barnaamijkan maalgelinaya Premier Bank isla markaana waxaa ka qayb qaadanaya dhowr mashruuc oo kala duwan oo lagu soo koobay 12 mashruuc. xalqadiisa saddexaad ee tartanka halabuurka ganacsiga waxaa ku tartamaya mashaariicda magacyadan kala wata ee kala ah Small Remnant Fighting oo marka la eego hal abuurka tartankaas oo ka socdo jaamacadda Muqdisho iyo sidoo kale Somali Toothpick oo ka socda jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Guddiga barnaamijka Professor Mubarak Ibrahim waa hal abuuraha ayaa aasaasaha barnaamijkan tartanka hal abuurka ganacsiga. sidoo kale waa gudoomiyaha jaamacadda Badar wuxuu ku guuleystay in barnaamijkan uu qabsoomo 5 sano oo xiriir ah isla markaana sanadkan markii ugu horeysay uu ka dhacayo magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Biixi waa khabiir iyo la taliye dhanka tiknoolajiyadda ah waa agaasimaha guud ee shabakadda cilmi baarista iyo waxbarashada Somaliland wuxuu 10 sano ee la soo dhaafay hal abuuray ganacsiyo ay badankoodu guuleysteen. Cabdullaahi wuxuu si gaar ah ugu fogaan yahay tiknoolajiyadda waxbarashada iyo kubcinta dhaqaalaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Professor Cabdirasaaq Xaashi waa khabiir iyo rugcada dhanka waxbarashada ah oo ku dhawaad nus qarni uu ka shaqeynay waxbarashada Soomaaliya wuxuuna shahaado dhanka waxbarashada sare ka qaatay jaamacadda Harvard. Professor Cabdirasaaq wuxuu kamid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Jazeera burburkii ka horna wuxuu bare ka ahaa kulliyadda waxbarashada la furay ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Professor Xaashi waa tababare waana aasaasihii iyo maamulaha xarunta tababarka Baka sidoo kale waa hal abuure iskiis u shaqeysto oo ganacsiga ka haysta Master of Business Administration. Ganacsade Axmed Cali Suldaan waa hal abuure ganacsiga ku soo dhex jiray muddo rubuc qarni ka badan wuxuu aasaasay shirkado iyo mashaariic badan oo guuleystay oo ka sameeyay dhanka hantida maguurtada ah dhismaha saadka daawada iyo adeegyada maaliyadda. Suldaan waa agaasimaha guud ee Pharmason oo ah shirkad soo dhoofisa cuntada iyo dawooyinka. Suldaan hadda waxa uu musharax u yahay inuu qaato PhD waana bare hal abuurka ganacsiga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. Waxaan u yeerayaa tartamayaasha sanaad waxay ku tartamayaan magaca la yiraahdo Small Remnant Fighting ama kobciye jaamacadda Muqdisho ay ka socdaan soo dhow waqtiga soo koob. bismillaah magacaygu waa Iskariya Cabdullaahi Daahir waxaa ka socda jaamacadda Muqdisho برنامجka ku tartami doonana waxa la yiraahdaa kobciye fighting center ama barnaamijka loo yaqaan small ruminant production-ka waayahay barnaamijkan xagee ka soo aragtay markii hore barnaamijkan aragtidiisa horta waa barnaamij wadamada developing-ka sameynaya hadda dunida hormaraya laga isticmaalo isla markaasina waa qaabka xanaaneynta xoolaha gaar ahaan idaha iyo aricadka ah waayahay maxaad rajeynay markaad is leedahay waa soo kordhi doontaa waa lagu qiimeyn doonaa run ahaantii rajadeedu aad ay u weyn tahay sababta ah meelaha soo maray oo idil iyo barnaamijkan markaan xulanay barnaamijyo aan kaga soo tagay si aan barnaamijkan u qaato aawadeed sababta sidaan ogsoonahay Soomaaliya maanta xoolaha baanin ay ku jiraan dunida markii loo dalo xoolaha Soomaaliga livestock GDP-ga wadanka uu qayb muhiim ka yahay haddana xanaaneynta xoolaha wali traditional-ka ku jirna waxaan u baahnaa inaan soo saarno hab modern aqoontiin aan ku soo kobciye waa xarun ka shaqeyn doonta naaxinta xoolaha gaar ahaan ariga iyo idaha ujeedada ugu weyn waxay tahay in la soo saaro xoolo tayo leh iyo caafimaadkeeduna uu yahay mid dhameystiran isla markaasina miisaan ahaan kuwa aad u sareeyo yahay sidoo kale ujeedada waxa ay tahay in aanu sare u qaadno ama aan hormarino wax soo saarta ama naaxinta dhanka xoolaha ee dalkeena anagoo isticmaalayna hab caalami ah isla markaasina leh faa'iido gooliska ma ujeedooyinka aanu leenahay waxa barnaamijkan aanu aasaasan in aanu sectorka livestock wadankeena aan horumarino sidoo kalena inaan sameeyno job creation ama fursado shaqo inaan abuurno oo marka hore nafsadeena iyo waliba bulshada iyo dhalinyarada aan u abuurno kale wax baratay sida veterinary ama cilmiga xanaanada xoolaha oo kale
sidoo kale waxay tahay inaan yareeno saameynta ay ku leedahay cudurrada xoolaheena oo ah haddii ahaa leed xanuunka oo dhoofintoodii saameyn ku yeelato isticmaalkoodii bulshada ay saameynayso sidoo kale inaan yareeno saameynta ay abaaraha ay ku leeyihiin xoolaheena oo xoolaha hab cusub oo madareena aan u sameyno oo lagu soo saari karo sidoo kale inaan macaamiisha ay kambaniga aan siino xoolo naaxintoodu ay dhammaystiranta isla markaasina caafimaadkooda laysku haleyn karo market strategy isticmaali doona waxay tahay anagu waxaan soo iibsan doonaa xoolo underweight loo yaqaan ama miisaankooda iska dhexdhexaad ka yahay waxaan ku sameyn doonaa muddo 2 bilood inaan miisaankooda kordhino oo aan naaxino 2 bilood kadibna aan suuqa aan u soo gudbino customerkeena ugu horeeya waxay noqon doonaan maqaayadaha ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo baahi badan u qaba xoolo naaxsan caafimaadkoodana loobo iyo hoteelada sidoo kale waxaa kamid ah kambaniyada hilibka ka shaqeeya sidoo kale waxaan gaarsiin doonaa xoolaheena shirkadaha dhoofiya hilibka ama xoolaha nool ee dalka dhoofiya oo aan ka caawin doono customerkeena ay qayb ka noqon doonaan waxaan rajaynaynaa inaan soo kordhino hab cusub oo online ah oo customerka ay ku heli karaan delivery xoolo loogu keenayo isla markaasina ay online ku dalban karaan qofka maalinta jimcaha amuurta qabo kale inaan tartiib ah ugu keeno galabkiiba soo diyaarsan operational plan kan waxay tahay inaan dhulkii diyaarino xoolihii kobcintoodii iyo barnaamijyadoodii kala galno riski ku hareeraysan barnaamijkeena waa jira ugu horeeyo caqabada xagga rabaani ama cudurro haddii ahaa lahaayeen inay imaadaan musiibooyin iska rabaani inay dhacaan oo laakiin aan kasii diyaar garownay oo calafkii iyo wixii la xiriiray iyo dhisaankii wixii dhan aan u sameynay sidoo kale inaan xoolihii siino forage ku filan ama haddii ahaa leed calaf ku filan iyo cunno ku filan inaan xoolihii siino inaan manage gareeno 4 hectares oo xoolo 120 ah ku bilaabi doonaa guud ahaan barnaamijkaas kharashaadka noogu bixi doona wuxuu noqon doonaa ama u baahanayna si loo maalgeliyo $8,950 revenue labada bilo ugu horreeya soo saari doona wuxuu noqon doonaa $12,400 grosska waay net income ka labadaas bilood heli doonana waa $2,450 oo aan soo saari doono labadaas bilood gudaheed hadduu ilaahay ka raali noqdo bismillah kuma santiin presentationka very clear ka document markaan fiirinayay runtii waxyaabo badan oo ugu amaano oo ugu horeyso dhinaca projections waxa ku soo galay maxaa ka baxay performance income inaas ku qorteen waa amaana ku gudantiin marka hadalka furanaysa waxa ku bilowday in sidii dadka hore u shaqeyn jireen si ka duwan u shaqeyn doontaan animal fattening kana waxa cusub maaha oo dadka oo dhan maaragtay ka shaqeeya idinku waxa ugu duwanaanaysaa waa mahadsan tahay professore anagu sidaan sheegnaba waxaa kaga duwanaanayna inaan nidaam cusub aan soo kordhino tusaale nidaamka soo kordhino hadda nidaam shakhsiyaad la isticmaalo xaafadaha oo kale waa laakiin midkan waa company leesan haysta isla markaasina ka shaqeyn doona xalaaleynta xoolaha oo caafimaadkiisa dhaqaatiir ah u sameyn doono sidoo kale hadeertan 120 ah ku bilaabi doona hal dhakhtar aan la shaqeyn doono dhakhtarkaas iyo 2 qof oo kale xoolaha xanaaneyntooda ka shaqeyn doono biosecurity lahoba ayaan u sameyn doonaa systemkaas oo aan ku dhiirigelinayna kambaniyada xoolaha dhoofiya ee wadanka inay nagu soo dhiiradaan ay noo imaadaan barnaamij la hubo oo liisan haysta oo aan la dhigin xoolahan meel kale lagu soo sameeyay sidoo kale waxa diyaarinaynaa beer iyo deegaan xoolaha calafkooda loogu diyaarinay anagoo 3 calaf isticmaali doona alfaha oo ah proteinkii suudaaniga graaska oo carbohydrate-ka xoolahan caafimaadkooda sidoo kale tallaalo la sii doono xoolaha vaccine oo kale hadii aala tallaaladaas cudurradii ka hortagay iyo hadda tusaale waxa dhacdo in xoolaha ay naaxiyaan dad aan aqoon u lahayn macquul ah dhacdo laga yaabo inay jiraan cudurro qaar oo hilibka ku gudba oo xataa hadii hilibkii la kariyo digriga lagu karinayo 115 xataa aysan dileen bakteeriyada intaas oo kale ka saabino neef waxa jirto 7 maalin daawadi la siiyay saameynayso laakiin maanta aysan wadankeena aysan ka jirno xoolo wali traditionalka ku jirno sidoo kale abaara imaanayso waxaad maqlaysaa qof 100,000 ama shalay naga taajirsanaa maanta loo kaalmeynayo oo aanan u diyaarsanayn in hadii barnaamijkan la keeno aan aaminsanahay in barnaamijyadaas kale aad looga soo yareysan doono kale iyo suuqa hadda dhibaatooyin ka taagan oo hadii aan si sharaxaad u soo helna xataa aan tilmaami karno oo ah in qofku xoolo xilliyada qaar aaba la helinba tusaale xilliga abaaraha jira xoolo ayagoo caateysan dhooyin xilligii ay imaado in la helo barwaaqane xoolihii baadiyii dhulka fog oo tagay la waayo laakiin anaga company labada meelba ka soo qaadan doono xoolihii xilli walba haayo loogu imaado la soo xiriiri doontid la huba aan noqon doona waxaan rajaynaynaa labada sano soo socota ilaa iyo 2,000 xoolo inaan gaarsiino hadduu ilaahay karaam noqdo aad u mahadsantiin waxaan dhahdeen marka xoolaha soo iibsaneen xoolo caafimaad qaba iibsanayna ma odayaashii xoolaha lugta iyo gacanta qabanayay wadameel ka fiirinayay miya dhaqaatiir baa meesha tegayso
suuragal say u tahay qof dhakhtar hadduu ma isago inta kale xoolahooda inuu baaro arrintaas suurtagalnimadeeda mase yaa cayilan iyo yaa buuran iyo yaa shilis waa shay laakiin yaa caafimaad qaban waa shay kale qodob waa kaas xoolaha waxaad doorateen kuwa caliya naqsada mataqaan prominent waxaa ku doorateen waay oo kuwa barya qaata markii hadhow cunaan wax kadib caloosha gaarka isbeerka leh kadib soo celiya waay aa ku dooratay kuwaas waxoogaa dhaqaalaha idin dhaqaalinayaan mar labaad bay cuntadooda cunayaan waa mahadsantahay professor aada kaaga mahad celinaynaa midda ugu horeyso ah yaa xoolaha idiin soo iibinaya sida aan sheegna programka waxaa u go'an dhakhtar oo ah operational managerka programka midda ugu horeyso ah neefka suuqa waa qiimeynaysaa neefka inuu fiican yahay deetana neefkii waa soo iibsanaynaa meel gooni oo karantiila jira barnaamijkii coronaviruska xoolaha horma loogu gudbinaya neefkaas waa la karantiila caafimaadkiisa iyo wuxuu la soconaa programkiisa neefkan daawooyin haddii ahle talaalkii iyo wixii uu siinaa neefka markuu xaaladiisa hubo weliba waxaa heli karnaa oo kale barnaamijkan aan la xiriiro oo ahaa inaan helno qalab la marsiiyo oo si free ah jaamacad kamid ah jaamacadaha dalka ee ku bixisa xoolaha lagu baari kara xitaa ay jirto marka hore neefka ish ayaa ku abaalina tan ama maxaa ku doorateen sidaa sheegtay maadaama anaga aan rabno Soomaalida labadan xoolaha aadka loo isticmaalo anaga ganacsiga waxa maanta ka shaqeynayno iyo in xoolaha kuwa la dhoofiyo ay ayagu yihiin ugu badan marka labadoodaba aanu dhankaas ka fiirinayno sidoo dhanka waa maaliyadana waa ka fiirinayna ilaa anaga waxaan meeshaan profit iyo faa'iido inaan ka sameeyno bulshadana aan wax uga soo saarnaa rabno oo bulshada waxay isticmaalaysaa xoolahana sidaas ku xulana ayagana waana labadan xoolo la jaan qaadi kara mar walbaahi cimilada ay ku sugan yihiin haddii ahaalan aricadka iyo idaha intaba businesskeena qaabka hadda anaga aan u qorsheyno business balaanka u dejino iyo sida rabno guud ahaan bataatan ba geeyigana Soomaaliya ama Muqdisho iyo meelaha ku xiran kuma aanan arag kama jiro inta baarinay shakhsiyan anigu way jirtaa marar xoolo inta meel laga soo qaado gobol laga soo dhiibay qofka uu suuq sidaas ku geeyo laakiin company xoolo inta xareeyo naaxiyo asoo buuran soo saar ma jiro كمبانية ويجران هيلب كدوفية دالك قار كإيبيا لكن كمباني حولا نول كجناحسنا أيو توسا أو سوق وسو سبلاي كريناي هذا تنبتاتن بمعنى نارك أنت بارين برامج كن. كوبية ما سنتين good percentage. لو سؤال قلنا سؤال شكوى هايدين قرن إن حولاس أسوق ديسا لعك كونتيشن دولار أكبر هنا يسا budget أكودر يسا kadibna aad iibin doontaan $9 adinkoo haynaya beertiin waxaad kaliisateen 3 bilood qarashaadkiina waxaa u diyaariseen 2 bilood haddii wixii idinla dhaafto marketka aweysaan oo qarashkii uu bato maxaa ku kala gasheen neefkii lacagtiisii lacag ka badan hadday idinka gashay ka warrama maxaa balaan oo alternative balaanka ah haysaan muxuu yahay su-aasheeda koowaad clear qaybta riskiska aad qorteen khatarta imaan karta sidii loo daweyn lahaa ma noocada tusaale ahaan xooluhu sida noola waa adiguba aan noola u tahay waa u nugul yihiin cudurrada way u nugul yihiin xero walba hadduu hal neef ka xanuunsado inay saame isla markii ay gaarsiiso way sahlan tahay waxaa laga yaabaa in 10 neef ay ku geeyo baabuurda soo saaraya intaasoo neef ay ku baabax iyadana maxaa idinkaga qorshaysan oo maasan سؤال أنا أمها سنت هاي سؤال شادي كواد كوادنيت ها كرشات كأد خرطين أما دولك إنا كريسين إنسان مدة هرتا دولك سيسن لو كريا سيدي سبب بيرها مركل كرينا لما بلود قف كان مدي كرتيت 3 بلود حتى بيش كوباد إيمال ما هردعكم أنا سيدي كتر سنة قياس النوع عسى مدة كلية إيها هو واحد هاي oo aan aniga ahaan khibrad ama u doortay barnaamijkan suuqa xoolaha ee Soomaaliya marnaba lagu ma qasaaraba inta badan sida aan aragnay oo probability khasaaradiisa aad u yar tahay ilaa neefkan beerteeda ayaa ku haysta xoolaha inta badan qiimahooda sida ku sheegay maanta company u baahan jiro xoolihii aad loo isticmaala xilliyo qaar hadda hadii bangiga bilaan ugu horeeya faa'iido waxaa nagu soo socota bisha carafo kale waxaa laga yaabaa faa'iido double inaan soo saarno inta hadda suuqu yahay in ka badan ay soo baxdo qiimaha hadda qorna ee 95 neefka ayaga kala birimo iyo sugunto iyo teerso neefka birimada ku xigeenka marka la fiirinayo aad ugu badan waa 120 ilaa inta laakiin maadaama anaga profit ka hadlayna shakhsiyan waxay tahay waxa ugu soo qaadan qiimaha ugu macquulsan ee aan gadi karno
taasaa kasoo qaban oo intaas faa'iido ka badan waa kasii samayn karnaa midda cudurrada ah horta riskiga waa kala qaadna wax min cindillaah ka imaana haddee dhimashada annaga inaa ka hormarnaa dhici karto xoolaha oo taas waa loo sameeyaa nafleeyaa wadanahay laakiin intaa dadaali karno birbarid waa dhakhtar u sameeyna xoolihii dhakhtarkaasoo nin xaafad wax igula bartaa oo aan dhigi kara unfair advantages ka hayso kamid yahay laftirkiisa oo dalkii wax ku bartay xanaanada xoolaha bartay sidoo kalena xataa xoolaha dadka afgooya dhulkaas kaaga dhow shaqadiisa ay tahay iyo laba qof oo aad subax walba wuxuu supervisor ugu sameeynaa xoolaha neefkii xanuunsan waa laga meel karantiila gooniya loo sameynaa halkaasoo daawooyinkiisa wixiisa ku qaadana oo treatmentiga xitaa waa xusne calafka la siinayo dhul baa loo mar kale miyaa qoyskii cawska looga helaya mise wax idinka waa qornay dhulka 3 qayb loo 4 qayb oo kala loo qaybina coos caadi waxa jira inta biyaha lagu sii daayo dhulka isbuuc kadib soo baxay iyo coos waxaan abuuranaa calafka asoo 3 nooc ah waliba way ku xusantahay documentiga midka ugu horeeya alfa la dhaha protein waa mid kalena waxa jira Sudanese grass allahi oo asina carbohydrate labadoodaas la isku qasaa xoolaha kuwaas la siinaa mar walba oo fitamiin u sii dheerihiin baneefkan lagu la soconaa beer baan lagu abuuray beerha 4 hektar beerha kireysanaynaabo oo routine section wax la hayaa jiro biyaha way qoranta laftirkeeda biyaha waa ku wabiga waxa locationka mareereya doonane mareerey oo wabiga aan ka heli karno haduu roob aan heli karno qayb badan aan fiirin hadaa weynana aan heli karno irrigation ceelal biyo dadka siiya oo saacado laga yaabo in $10 wax qiimo dhan ku bixis barnaamijka si aad u soo baarna muddo halka soo aadeed labadiina maxaa barateen agriculture waad dhigateen ma business backgroundkiina maxay labadiinaba economic-ana kuliyada maamulka dhaqaalaha waa taan u dooranay nin dhakhtar ah oo barnaamijkan operational manager nooga noqda ashi ugu dambaysa wallahi ardayda ina u faa'iideystaan rabaa xoolahan aan dhaqaaleynayno ariga iyo idaha iyo meeqay ku dhalaan meeqa bilood ay ku sheeg ay ku dhalayaan ay ku rimayaan arrinko waa maasanta anaga hadeerta maadaama small business ana hadaan xoolahan weerimayaan dhibaato nagu tahay oo waxa ka dhanka dhidiga waa iska ilaali doonaa waayo hadeerta kubcina rabnaa inaan faa'iido degdeg ah sameeyno kadib xooli aan soo badino xoolo kale aan soo gadano 2 bilood oo ariga inta oo ku weynaan karo kale run ahaantii taas been kama sheegi karo waa soomanahay waxay ku xiran tahay deegaanka neefka laakiin anaga neef dhalaayo hadeertan kuma laakiin xoolo waxay dhahan 2 sano 3 sano neefkan jirsada iyo dhagaa waa ka maqalnaa laakiin waxaan dhaqaatiir operational noo qabanaysa thank you aad u mahadsantiin hilibka qosayni kan candadiisa ma qosay marka waa sax yahay aad u mahadsantiin thank you ka faa'iideyso qiimo dhimis gaaraysa 70% oo $3 oo kaliya ku hel Mastercard waxaan u yeerayaa oo noqonaya tartamayaashii lixaad ee nasiib ku yeeshay markay qabashada tartamayaasha wato Somali Tooth Pick magacooda sood loo soo gaabiyo soo dhaw qofka u tartamaya waqtigaaga ilaasho 3 daqiiqo iyo kadib guddiga qofka ah oo hadda baad la sii dardaarmayno si uu hadhowteysna waqtiga u soo koobo isla markaana uu ilaaliyo daqiiqadaha kooban ee guddigu ay su'aalaha weydiinayaan soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقرين رمضان كريم الله يعاكم مثلا انت عافمات اسبوعك كان waxaan rabaa inaan ka hadla Somali Toothpick Industry oo warshad soo saarta tiish istakiinka sorry introduction-keena hadii aan galo Somali waxa Tooth Industry waxa waaye shirkad soo saarta istakiinka aanan hore ugu jirin wadanka Soomaaliya markaan baaritaan sameeyay inta badan ay noogu timaada wadanka dibadiisa ayadoo ay jirto inaan maalin kasta isticmaalo dalkeenu u baahan yahay haddana ma jirto sabab ma aqaan sababta loola soo daayay laakiin ma jirto wali wax shirkad soo saartay oo istakiinkaas ku hawlan sababtaas problem ka jiro waxay tahay marka inaan rabno inaan booska aan buuxino ma ka jirto shirkad soo saartay that's why aan dooranay topic-an inaan wax ka bedelno insha Allah solution-kan wuxuu yahay inaan aasno shirkad cusub oo ku hawlan wax soo saarka istakiinka sidoo kale inaan ka qayb qaadano lacagtan inay safe garowdo mas wadanka dib ay ugu soo laabato maadaama aan wax noo shaqeynay iyo dadka noo shaqeynay waxaas ay Soomaaliyiin lacagta wadanka inay dib ugu laabato sidoo kale inaan ka qayb qaadano wadanka shaqadiisa oo dadka noo shaqeynay kala Soomaaliyiin saas oo kale ay shaqadii aan dib ugu laabano traction number-keena waxa waaye revenue lacagta aan na soo galayso waxa waaye 37,500
expense 2400 iyo $30 net profit waxa waaye 35700 next أو market opportunity aan ka haysan waxa waaye inuusan ka jirin oo hadda taa xogo caqabado badan aysan ka jiri doono market ka hadda hore uusan ka jirin aan qorsheynin insha Allah hadii aan ku guuleysan inaan barnaamijkaas ka hirgelino fundraising kan waxa waaye mashiinada aan u baahanahay waa ilaa 8 waaye 4 kamid waxaan ugu baahanahay laba inta ay ku wada qoran yihiin soo marka intaanan u baahanahay next business model kaafkan waxa waaye ku waxaanu customer kan waxa anaga xageen ka helinaa customer kan waxa waaye hoteelada iyo maqaayadaha iyo meelaha showbiz dukaamada caadiga maadaama dadka xaafadaha xataa ay isticmaalaan sideen wax u gaarsiinayna dadkaas u baahan sideen wax ku gaarsiinayna waxay tahay inaan sameeyno Facebook xayisiin inaan ka sameeyno iyo marketing caadi inaan labadaba aan sameeyno waa noo qorsheysanta insha Allah summary waxay tahay ugu dambeyn inuu soo saaro Somali Toothpick Industry inay soo saarto shirkaddan inay soo saarto istakin kaasoo wadanka gudihiisa lagu sameeynayo looguna maarmi doono insha Allah inta karaankeena inaan sameeyno ay tahay booska aan buuxino wax la soo dhoofinayo maadaama oo la soo dhoofiyo dhoofitaanka inaan ka maarno ilaa ay xad aan maarayno wadanka gudihiisa wax ku filan inaan soo saarno insha Allah aad u mahadsantiin adan oo mahadsan tahay maadaama aad waqtigaaga ilaashatay oo aad daqiiqadihii ku soo koobtay loogu tala galay markan waxa ku bilaabanaysa daqiiqadihii kale ee guddiga su'aalaha ku weydiinayaan waa kaliya Soomaa maxaa qadar Soomaa muski doomi maxaa qadar soo istaag maxaa qadar waa guddiga waa yahay isaga su'aalaha kala jawaab doono lagu weydiin doono kadibna idinka iyo guddiga idinka dhex baxaya si waqtiga aad u ilaashataan soo dhaw bismillah موضوعنا مقيس Somali Toothpick Industry toothpick maxaa waa Soomaali ilkaha caday lagu eray Soomaali u sheeg maadaama dadkii dabanayo Soomaali dadkii hore ugu gaabiraan ahayn waa ka cudur daarna haday qasab igu tahay waa isku daya waa la mid ah shay bindicil maqasheen aad iyo aad okay bindicilka dhakhtar caafimaad ma la tashateen bindicilka ilkaha dhibkuukii haddii aad bulshada wax u taraysaan asii ay ilkalaan noqoto ka warrab idinkuna ganacsi heshaan dadkiina meelaha ay daldaloolada ay weynayso caafimaad ahaan so ma jirto dhakhtar caafimaad wax ma ka fiiri wax caafimaad ku saabsan idinma qorna sax maaha waxaad samaynaysaan kuwa idinka horreeya waa jiraan alwaaxyo qojajaah way jiraan idinku dhir baad beeraysaan fiican bulshadana environmentgan wax u tara lagana sameeyo findhicil waagi hore annaga findhicilka ugu fiican qodax buu ahaan jira ma qodxaan noo keenaysaan waddanka saa wax ugu tartaan mise waa un dariiqadan ilka bixiska ah soo dhawaato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ آدم ما تنتهي أنا جوا حنا قرشة إن شاء الله ورشدنا هداهر جلينه وحالا صعدت مقالة مقدش إن قاتيان لقيت أجيه جوال القار دلك أما دولة مقدش جيت كلو يقان على جروبك وحنا قرشة سنة جيت كاس لي جيت يهود عفوا دلك قار على جروبك سنة بنا يهود برك جيت يهود كاس أنا قرشة سنة إنك سمين إن شاء الله وحاك لو نقرشة سنة برك waxaa leeyahay neefkii uu mudo ama qofkii uu mudo suuyaha marag si fiican hadduu ciridkaa mudo ka war way jirtaa ustaadi waa taas markuu qoyan yahay waxaan sameynaynaa waa qalalajinaynaa at least waxaa loogu talagalay way ku qoran tahay afar ilaa 3 sano geedka inuu qalalsanaado marka horta inta caligaroob ku bilaabin waxaa raadinaynaa caligaroob waa sii diyaarsanaynaa waxaa raadinaynaa meelaha lagu sameeyo sariiraha ama aluminium eraya qaarkood fiican qolo isticmaala jiro garanwaa waa meelaha qaarkood أنا سمع أيضا قرب يا أديب هذا marka meelaha lagu sameeyo aluminium ama sariiraha afwan meelaha lagu sameeyo sariiraha kale waxa jira qoriyo yar oo soo haro oo la sameeyo badan waa la daadiyaa magaalada oo lagu arkaa dadka qaarna waxa way dabay ka shitaan kuwaas oo kale waxa wax badan laga faa'iideysan karaa dhowr xabo waxa laga soo saari karaa istakiin lacag laga sameeyo karaa marka waxa noo qorsheysan inta geedka caligaroobka maadaama suntiisa ah sheegtay waa sax waa ku darsanay balaanka waa intuu ka qalalaay in geedahaas kala asi isticmaalno oo xamar aa wareegno intuu ganacsigeena ka kacayo insha Allah سؤال عافمات أستاذ وكاجي جواب بحال حديل قال الجيو سامنت مركو قيانيه ولا هي ملهاناي عافمات
taa haddaba waa la keenaa waxaa lagaaga keenaa India iyo China lagaaga keenaa baa adna ma igu daraysaa su'aal aad u muhiimsan أنا بدبادسات طبعا maya ustaad su'aal aad u muhiimsan waay ma laga maarmo hilib ma ka maarantaa ina hilib cunto وفي عنتها لكن أي بحير هذا ما هيلك كينت أنت هيلك كل إسقى بحنا كينس أنا بحنا هي hilibkii waa asxaabtii geyn lahaa way soo istaageen markii hilibkaas la cunay kadib wax la iskaaga bixlaa loo baahan yahay marka hilibka cuntidoo kale Soomaaliyeed inteena badan qofka maaram hilibka cunistiisa ma jiro inta badan waa la cunaa hilibkaas marka la cuno kadib waxaa ka faa'iideystay iska bixiskiisa waxa waaye waxaa ka faa'iiday China iyo India dhalinyaro anagana la mid ah oo ka faa'iideystay maadaama anaga Soomaali aan nahay jaamacada ka baxnay oo marka jaamacadii dhameeyno CV ala wareegna magaalada waa muhiim inaan sameeyno qorshe ganacsi oo muhiim ah mideeda kale haddii aan ku daro saaxiibkay su-aashu dhamaystiri haddaba waa la keenaa caafimaadkiisana hadda ma lagu fikiro saas eetaan lacagteena meel kale usii laabataa almeena haddii la xanuunsana lacagtiin annaga aan ku xanuunsan lahay annaga hadda taasaan isleeyahay anaga xawle bismillah waa aad u mahadsantihiin dhibaatada la sheegayana iyadoo jirta haddana waa halkii jaadka qaadka dan la joojin karin at least aan beernada dada aaminsan dada qaba lacagtii naga bix marka jaadka dabcan waa ognahay inta lacag nooga baxda maalin walba iyo bil walba istakiinka maxaa nooga baxa wadankan maxaa lacag loogu bixiyaa istakiin la soo import gareeyo ustaad taas waa baarnay inkastoo ansarkeeda saxda ah research saxan ah laga haynin Soomaaliya hadda laga diyaarinin istakiinka lacagta ku baxda ama Soomaaliya marka la keeno lacagta ku baxda laakiin waxa sameeyna qiimeen Soomaaliya qiyaas meeqa maqaayadooda ku taal meeqa hoteela ku taal meeqa dukaama ku yaalaan guri kasta maanta waa looga baahan yahay istakiinka marka waxa sameeyna qiimeen ah in istakiinka lambar badan tusaale ahaan baraday aan soo saari karno 250 xabo taasna aan ka sameey karna lacag aad u badan oo wadanka ka bixi lahayd oo wadanka dibadiisa aadi lahayd dhimaanka meeqa ku qiyaasaysa hadda meeshan waxa kugu qoran inta aad soo saari kartaan 250 kartoon bishii baraday yes baahida daily ahna meeqa ku qiyaasaysa xamar kaliya halka iska baahida hadda walow saaxiibkii uu sheegay sida saxda ah wax hadda soo xarooda 100% insure ay ahayn oo lan hubin waxaan ku qiyaasanaga ilaa 500 ilaa 350 inta u dhaxaa walow ay ka badan karaan intaas ku qiyaasan sadada uma santiin inta la soo dhoofin la ilaa laga qaadataan waa taageersanahay su'aashayda laba su'aal waaye ma fiiriseen environmental impact geedahan aad jaraysaan sharci maxaa u yaala dawladda ma leediin ogol yahay mise mamnuuc waaye geeda in la talaalaa la dhiirigeliyaayo 5,000 oo geedaa noo qoranay wasaaradda sheegay adaa tiraa geedaan sii jaraya hadda kuwa la jaraya geeda islaameed waa anaga ma lihin moogtahay dawladooda ugu tala gashay anaguna lacagta inay qaataan lacagtan xanuun ay ugu haysaa waa sax laakiin adigu maxaa ugu tala gasheen garanwaaga iyo isaga laftiisa in la jaro ma la ogol yahay horta in la beeraba number 2 su'aashayda labaad markaa soo jartaan oo warshada gelisaan maxaa weelo ku shubirtaa weelka iga gaday gacmaha ma igu siirtaa maxaa weelo u qiyaastay expensigiisina uma arkeen ustaad aad u mahadsan tahay marka hore waa ku sheegay geedaha isticmaal rabno marka hore waxa ka bilaabeynaa ku dhahan meelaha lagu sameeyo alaabaha jiifka ama sariiraha ama lagu sameeyo waxa jiraan geedo aysan u baahneen iska daadiyaan kuwaas soo aruursanayna anaga soo aruursanayna keensanayna ayaga ka bilaabeynaa shaqada mashiinadii loo baahnaa ee sameeylaha way noo wada qoran yihiin oo meesha ku diyaarsan yihiin second geedkan geed yahuudka loo yaqaano hadda magaalada ku yaal magaalo inuu geed yahuud ka baxo ma loogu talagalin geedaha kaleeto oo mudan in la beeraa macnaha dhiirigelinayna in la beero maadaama aan nahay anaga xitaa arday barata kulliyadda beeraha oo aan soo horjeedna arrinta in geedaha la xaalufiyo second waxa ku su'aashaadii labaad da ugu galo maxaa idin qorshaysan inaad ku shubtiin sax marka hore anaga waxaan noo qorshaysan inaan ku shubno bacda waa taqaaniin aan maleynaa bacda jalaatada maadaama businesskeen uu yahay business bilow ah bacaha jalaatada kartoonkii waxaa waaye intaas 30 iyo dhaxba inaa ku jirtaa aan maleynaa abaarnay kadibna waxaa waaye halkii bac waxaa ku shubi kartaa ama halkii bokis oo istakiinkaas kamid ah 50 ilaa 60 xaba lagu shubaa 50 ilaa 60 kaas xabo waxaa laga yaabaa hal xabo bac jalaata ah ina afarteeda xabo ku shubtay afar xabo ina ka soo saartay bacda kostigeeda kuma qornaa marka bacda kostigeeda ma noo qornaa laakiin waxaa jiraan lacaga yar oo hadda meesha ka baxsan oo laakiin anaga jeebkeena macnaha
ugu talagalnay inaan kaga kabno ishuwihii caafimaadka ee ustaad cabdirasaaq barofka uu sheegay mar labaadaa ku noqonaya dhinacii kama fiirinayo ilkahaas u kala dhaqaajinaa laakiin alaab la daadiyey oo la isticmaalay in dib loo recycling aad ku samayso caafimaadka maxay u keenaya dana waa sax sideeda ma ahan tusaale ahaan woodkan geedkan marka gacanta la saaro waxaa laga yaabaa fayraskii ama wasaqdii inay taabato wuxuu maraa warshad wasaqdii kor waa laga qoraa teeda kalena waxaa waaye process dheer uu maraa intaasoo warshado waxaa qoran mashiino uu mari doono mashiinadan markii la marinayo geedka waa taqaanaa waxaa waaye naftirkooda waxay leeyihiin heerkul marka waxaad ma isleeyahay dhibaato saas weynaa ka imaan doonta inkastoo ay ka imaanayaan dhibaato aad umahadsantihiin waxaan rajaynaynaa inaad baajin doontaan qarashkaas tirada badan oo soo galaya aad umahadsantihiin dhammaan waxaa idiin sheegaa su-aalo dhowr iyo tobanaa noo qoran presentationka wixii aan ka aragno oo clear ah waa saxanayna annaga su-aashii aan garan weyna ama qofka uu ka fahmi weynaan su-aalahan ka weydiinayna clear marka objective ma aha su-aalaheen imtixaankeena waa subjective meeshay noogu qoran yihiin waxaan ula jeedaa objective meeshay ku qoran yihiin su-aashaan weynaa idiin weydiinaynaa keliya way mahadsan yihiin Somali Toothpick waxay dhaheen intii waxyaabo dibadda laga keenay aad ku xanuunsan lahaydeen kuweena ku xanuunsada anu hal tala aad ku darsanahay dad guuleysataan sigaarka dushiisa waxaa ku qoran caafimaadka uma roona haddii aad ku guuleystaan inaad soo saartaan barnaamijkan waxaa jiro dadka hortooda ku findhicilsado oo dadka kale waxay cuni lahaayeen ka joojiyo tusaale qof markuu dhergo maqaayad isagoo joogo uu isla meesha wuxuu ku bilaabaa inuu findhicilka qabsado laakiin waxay dhibay qof kale kasoo horjeedo marka banaanka waxaa ugu qortaan dadka hortooda ha ku findhicilsanina markaa soo saartaan sidaad ku darsanayaan waxaa intaas ku eg xalqadii saddexaad oo ay ku tartamayeen small ama magaca kobac ee mashruucaas ee wata isla markaana hal abuurka wata uu ka socday jaamacadda muqdisho iyo sidoo kale Somali Toothpick oo ardayga ama mashruucaas wata uu ka socday jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho waxay dal socodsiin anigoo Jacfar ah tartanka waxa maalgelinaya Premier Bank intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo